بقربهم السعادة والنجاة يا باحثا عن خير صحب في الحياة صحب بقربهم السعادة والنجاة daawo waxaan ku soo qaadanaa barnaamijkan qisooyin dhab ah oo dhacay oo xaqiiqo ah صحب بقربهم السعادة والنجاة amaanada inuu kugu bedelo wax ka khayr badan درب المعالي دربهم لم يسلكوا دربا سواه qisadan daawo waxay tilmaamaysaa adigu aabbahaasaad ula dhaqanto sidaad hooyada ula dhaqanto ayuuma caruurtaaduna marka weynaadaan ay kuula dhaqmayaan دربهم لم يسلكوا دربا سواه فدربهم درب الدعاء درب المعالي دربهم لم يسلكوا دربا سواه فدربهم درب الدعاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كسو دوادا برنامج كينا قصوين كان لشا داو waxaan ku soo qaadanaa barnaamijkan qisooyin dhab ah oo dhacay oo xaqiiqo ah si aynu ugu tusaale qaadano si aynu waan ugu qaadano qisadana maanta waxay ku saabsan tahay nin sheekha oo ku nool oo dalalkan gaalada mid kamid ah ayaa wuxuu khatiib ka ahaa masaajid maalinta jumcaha masaajid buu ka khudbadeyn jiray jumcaha markuu salaada ka baxo salaada jumcaha ayaa waxa uu sameyn jiray isaga iyo wiil yar oo dhalay oo 12 jir ah ayaa israaci jiray marka israacaana buu ka sheekeynaya islaamka oo la yiraahdo tariiq ila aljanna ayaa waxay u qeybin jireen dadka wadada maraya jumca ka saasi sameyn jiray jumca kamida jumcayaashii ay runtii ay ka qayb qaateen baa waxa dhacay markii ay ku tala galeen inay baxaan oo ay kutubta qaybiyaan ayaa waxay arkeen iyadoo runtii jawigu uu bedelan yahay oo roob iyo dhaxani ay jirto kadib odaygii wuxuu go'aansaday maanta maadaama uu roob jiro oo dhaxanna ay tahay inuu iska joogo kiisii yaraa kitaabka la soo qaybin jiray maalin kasta ayaa u yimi wuxuu ku yiri aabbo maanta maynaan baxayn waa jimce si aynu u soo qaybino kitaabkii aynu qaybin jirnay dadka gaalada ah sida islaamka u bartaan odaygii baa ugu jawaabay sheekha ahaa aabba maanta roob baa jiro waana jawiguna waa qabow ma bixi karnay iska joog maanta kii yaraaba ku adkaystay kadibna kii yaraa markii dambe ku yiri aabba aniga maanta kaligay oo galow inaan baxo oon soo qaybiyo kitaabka sheekhu intuu hore uu sadkeeyay laakiin markii dambe wuxuu ogolaaday inankiisii yaraa oo 12 jir ah inuu kutubtii qaado oo soo qaybiyo kii yaraaba baxay kutubtii buu qaaday dadkii wadooyinka maraya xaafadda ayuu qaybiyay kutubtii markuu dhameeyay ayaa waxa hadhay hal kitaab baa hadhay kitaabka hal kitaab markuu hadhay uu eegay dadkii meesha marayay ayuu waa cid uu siiyaba cid alla cid uu siiyo waay kadib wuxuu go'aansaday guriga ugu horeey ka soo horjeeda inuu kitaabka uu siiyo kadibna guriga ugu horeey ka soo horjeeday ayuu albaabkiisa qaraacay albaabkii markuu qaraacay ayaa laga furi waay haddana uu qaraacay laga furi waay haddana xoog uu qaraacay markaas laga furay islaam baa ka soo baxday da'deedu weyn tahay islaantiiba wuxuu ku yiri hooyo raali ahow waxaan ku sheegay ilaahay inuu ku jecel yahay waxaan ku wada hadiyad kitaab baan ku wada kaaga sheekeynaya jannada kaaga sheekeynaya iyo adduunkan wixii loo abuuray hoo kitaabkii buu dhiibay wuu iska baxay waxaa dhacay jimcihii labaad sheekhu markuu khudbadii dhameeyey muxaadaradiisii dhameeyey ayaa waxa uu bilaabay inuu yidhaahdo yaa su'aala qaba kadibna islaam baa halka dambe ka kacday qaybta dumarka ayaa islaam ka soo qaylisay markaasaa waxay tiri anigaa su'aal qaba anigu waxaan ahay bay tiri jimcaankii ka horreey bay tiri maan ahayn muslim masaajidkani halkan ammaan aqoonin laakiinse waxaa dhacay bay tiri nin baan lahaa ninkaygii baa dhintay dhowr bilood ka hor kadibna la adag baan galay warwariyo walaac baan galay kadib waxaan go'aansaday bay tiri inaan isdilo go'aanka markaan qaatay ayaa waxaan go'aansaday gurigayga inaan isku dilo markaan qalabka xidhay markaan kursigii fuulay ee xarigii aan ku soo xidhay meeshii aan isku daldali lahaa ee qoorta sida aan u geliyey anigoo isla isdil ayaa albaabka la qaraacay albaabka marka la qaraacay waxaan sirabay tiri qofkan albaabka qaraacay uu iska tagi doonaaye bal yara sug
وير السوقي وتجي واي مركو تجي واي كل عليي أيان أنت إسكفري حرقي عن صباحي الباب كسيدا ما كان أفريبا مسوا كيور عيانا والملك موضوع كلمات اللي يابلو إيشاي قبل يتري وحيقول يري إلهي وكتش عليها كتاب كان هو وحكاك شكلي آخرية كنظر يدونك وحلو سمي وان قاتبه كتابك وان قات ما كان ساق قاتب بوق إسيي قول كيغان قال وان أخري سيدا مركنو دمي ومن اسبدل مركبه waxaan arkay in aan u baahnayn ba in isdal dalaba markiiba kursigiyo wixii aan meesha saaray baan ka tuuray waan islaamay saacadiy raaxan dareemay buuga xaqiisa dama waxa ku qoran markaskiina ba xaqiisa dama kaga qoran magaciisa ku qoran saadirteed ba idinku imi maadaama magaca halka dambe aad ku qornaydeen ilaahay waan ugu mahadnaqayaa idinkana waan idin mahadnaqayaa nolosheedii aad badbaadiseen kii yaraana ilaahay uu soo diray malaga aad moodaysina waan u mahadnaqayaa inta marka ay sheegtay ayaa masaajidka hal mar qiirooday imaamkii masaajidka sheekhi ayaa soo istaagay kii siyara oo safka hore fadhiya ay sida u qabtay markaas uu dhunkaday markaas ku ooy dawada qisadan waxay tilmaamaysaa qofka yare aad dhashay hadad si fiican u tarbiyadayso wuxuu qaban karo waxaanay dad waaweyn qaban kareen waa kulba mas'uuliyadda aad barto kulba sida mas'uuliyadda ugu dirto ayuu qofkan u noqonayaa marka intuu yahay qofku waad ku soo barbaarisaa diin jacaylka diinta inuu faafiyo wanaaga akhlaaqda intaba markuu yar yahay qofka ku soo barbaaray meelaha wanaag iyo khayrku ka jirina qofka yar dhashay u ka hayso intaas ku soo koobaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh بل سبحوه واشكروا سترون أرزقا ترى مثل السماء إذ تمطروا عند اللقاء تصافحوا